Sida aan wada ogsoonahay, adduunka waxaa ku yaala 5 qaaradood oo kala ah Afrika, Aasiya, Yurub, Ameerika iyo Australia. 5tan qaaradood waa qaarado ay ka jirto nolol caadi ah, aadanuhuna ay ku noolaayeen muddo ka badan 100,000 kun oo sano. Haddaba daawade, adduunkan waxaa ku yaala qaarado intaan ka badan. Magacaygu waa Yuusuf Xadaari, halkanina waa Irmaan Show. Soo dhawow daawade. daawada dhulka aynu ku noolahay marka laga tago qaaradaha 5 ah ee aadanuhu degan yahay, waxa kale oo ku yaala qaarad loo yaqaano Antarctica ama qaaradda 6aad ee adduunka. Dhulka Antarctica waa mid ka mid ah qaaradaha adduunka, sidoo kalena waxaa loo yaqaanaa qaaradda 6aad ee adduunka. Qaaradda Antarctica waa mid ka mid ah meelaha ugu qarsoodiga badan ee adduunka, waana dhul bed ahaan fidsan 13.66 milyan kiiloomitir oo iskuweer ah, waxayna dhul ahaan ka weyn tahay qaarado badan oo adduunka ah sida Yurub iyo Australia. Antarctica waa dhul caan ku ah barafka aadka u daran iyo dabaylo xad dhaaf ah, waana dhul ay adag tahay in aadanuhu ay ku noolaadaan. Dhulka Antarctica ma jiro qof ama waddan si gooni ah u leeyahay, balse taa beddelkeedii waxaa loo aqoonsan yahay dhaxalka aadanaha. Qofku marka uu rabo inuu u safro dhulka Antarctica loogama baahna baasaboor iyo fiise, balse qof kasta waxaa qasab ah inuu maro tijaabooyin caafimaad oo lagu xaqiijinayo inuu ku noolaan karo cimilada adag ee dhulka Antarctica, iyo inuu u hoggaansamo sharciyada loo dejiyay sida inaanu meelaha barafka dushiisii waxba ku tuurin, in aanu taaban xayawaanada meelahaasi ku nool iyo sidoo kale inaanu ku saxaroonin barafka dushiisii. Waxyaabahaasi oo dhan si looga hortago waxaa loo sameeyay waxyaabo kale oo uu kaga maarmi karo sida meelo uu ku xaajo gudan karo. Dhulka Antarctica badanaa dadka booqda waa dad keliya u taga inay cilmi baadhis ku sameeyaan. Waqti xaadirkanna waxaa ku nool ilaa 1,000 qofood oo ka kala socda daafaha caalamka, kuwaasi oo u jooga inay cilmi baadhis ku sameeyaan oo keliya. Warbixinaha ay soo saareen khubarada cilmi baadhista ku sameeyay dhulka Antarctica waxa ay sheegeen in dhulka Antarctica uu waqti malaayiin sano ka hor ah uu ahaa dhul ay aadanuhu iyo xayawaano kale oo fara badan ay ku noolaayeen, balse ay waqti hore dhammaantood hoos mareen barafka xad dhaafka ah ee dhulka Antarctica, ilaa iyo waqti xaadirkanna ay ku duugan yihiin gunta hoose ee buraha ka samaysmay barafka. Sidoo kale, cilmi baadhisaha lagu sameeyay dhulka Antarctica waxaa lagu ogaaday inuu yahay dhul aad u khatar badan, oo barafka hoostiisa waxaa ku jira fulkaanooyin aad u tiro badan. Ilaa iyo iminkana in ka badan 100 fulkaane ayaa la xaqiijiyay inay ku jiraan barafyada hoostooda ee dhulka Antarctica. Maadaama dhulka Antarctica uu yahay dhul barafley ah ayna ku duugan yihiin fulkaanooyin aad u tiro badan, khubarada cilmi baadhistu waxa ay ka digayaan in haddii ay qarxaan fulkaanooyinka dhulka Antarctica ay halis weyn ku tahay adduunka oo dhan, oo markii ay qarxaan fulkaanooyinka waxa ay si dhaqso ah u dhalaalin karaan barafka buuraha noqday ee dhulka Antarctica, waxa ayna biyo xad dhaaf ah ku dari doonaan badaha waaweyn. Biyaha xad dhaafka ah ee soo galay badaha waaweynina waxa ay ku fatahi doonaan adduunka oo dhan, taasi oo soo gebagabayn karta nolosha aadanaha. Waxa aynu nahay noole aad u tamar yar oo nolosheenna oo dhan waxa soo gebagabayn kara hal aafo oo dabeecadda ka mid ah. Nolosheenna oo dhanna waxa ay noqon kartaa sidii wax aan weligii jirin. Balse aafada fulkaanooyinka Antarctica ma aha kuwo si weyn looga cabsi qabo, oo xataa haddii ay jirto cabsi laga qabo si ay fulkaanooyin u dhacdo waxa ay qaadanaysaa in ka badan 10 sano si ay energy aad u xoog badan ugu kaydsato. Haddaba daawade, marka laga tago khubarada cilmi baadhista u aada dhulka Antarctica, waxaa jira dad kale oo dalxiis u taga dhulka Antarctica. Sidoo kalena safarka dhulka Antarctica waa mid ka mid ah safarada dunida ugu qaalisan, oo ugu yaraan qofka u safra dhulka Antarctica waxaa laga qaadaa $10,000. Ku darso dhulka Antarctica waa dhul cabsi fara badani taalo. Haddaba daawade, adigu ma jeclaan lahayd inaad u dalxiis tagto dhulka Antarctica? Daawade, aad ayaad u mahadsan tahay haddii aad halkan nala soo gaadhay. Muuqaalkeennuna halkaas ayuu ku eegyahay, ha hilmaamin inaad muuqaalka like inoo saarto lana wadaagto saaxiibada. Haddii aad nagu cusub tahayna ku soo biir barteena Irmaan Show oo ka mid noqo saaxiibadeenna cusub. Mahadsanid.